السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Nasuudiin Faarax. Maanta halkan waxaan ku duubayaa wacyigelin caafimaad oo ku saabsan xanuunka loo yaqaano faaliga afka qalaadna la yiraahdo stroke. Stroke waa maxay? Waa marka uu khalkhalo dhiiggii maskaxda ku socday, maskaxda dhiig u baahan tahay waraabiya, marka uu khalkhalo dhiiggaasi uu istaago joogsigiisii ama si fiican u socon waayo ayay xaaladaasi timaadaa. Waana xaalad aad iyo aad u halis badan oo bulshadeena ku soo kordhaysa, marka taasina waxay u baahan tahay wacyigelin dheeraada. Marka noocyuu leeyahay faaligu, noocyadiisa waa laba nooc baa ugu badan. labada nooc, nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa ischemic stroke baa qalaad loo yaqaanaa. waa xiidadii maskaxda dhiigga waraabinaya markay xidhmaan ay xinjiro xidho ayaa loo yaqaanaa ischemic stroke. ka labaadna waxaa loo yaqaanaa hemorrhagic stroke. waa dhiig inuu maskaxda ku furto, xiidadii waraabinaya maskaxda inay qarxaan kadibna maskaxda ku furto dhiig, kaasaa loo yaqaanaa ischemic stroke ayaa loo yaqaanaa hemorrhagic stroke loo yaqaanaa. marka mid kale oo safmara baa jira oo transient ischemic attack la yiraahdo, oo kaas isagu ma badna, waa safmar baa la yiraahdaa. marka labadan nooc baa laakiin ee hore ugu muhiimsan. maxaa keena dhiig karka? maxaa keena stroke? stroke waxa keena ama dhiig karka waxa keena faaliga waxa keena kow dhiig karka. qof hadduu dhiig kar leeyahay uu dhiig karka la xakamin waayo lambar uu keenaa. waxaa kaloo keena sonkorta ama macaanka diabetiga waxaa faqraad loo yiraahdaa, kaasina uu keenaa. waxaa kale oo keena subaga ama dhiigga markuu subag yeesho, kaasina uu keenaa. cabista sigaarka kaasina way keentaa. jimicsi la'aanta way keentaa. waxaa kaloo keena cunno caafimaadka aan u wanaagsanayn ama unbalanced diet markuu qofku cuno. waxaa kaloo keena xanuunada wadnaha ku dhaca. intaasoo ugu badan waxyaabaha keena. calaamadaha maxaa lagu gartaa? waxaa lagu gartaa xanuunka faaliga qofka calaamado ka muuqanaya. calaamadaha halkee laga eegaa? ugu horreyn wejigaa laga eegaa, fayska ama wejigaa laga eegaya. wejigiisa maxaa ku dhacaya? dhan baa baktiyaya, qayb dhan ka mid a ayaa wejigiisa baktiyaysa, ama muruqyadii wejiga ee dareenku ka imanaya maskaxdii u dhiig fadhiistay, kadibna muruqyadii wejiga ayaa xamilgabaya oo markaa qayb baa baktiyaysa wejigiisa. gacmaha oo kale ayuu xoog u saameeyaa, gacan baa baktiyaysa, ama qofka gacanta kama shaqayn karayo, ama ma soo laabi karayo, ama dareenkii baa ka tegaya. waxaa kaloo saameeya hadalka, qofka hadalkiibaa ku arkaanaya ama carabkiibaa cuslaanaya, ma hadli karayo, hadalkiisii baa la kala saari karin oona isdhexgelaya, ama fahamkiiba isagaba ku arkaanaya. taasina waa calaamadaha lagu. marka calaamadaha markaad aragto wejigiioo baktiyey, gacantiioo qaadi kari waayey, hadalkiioo ku adkaaday, maxaa la rabaa inaad timeka si degdega ula xidhiidho goob caafimaad oo qofkaa u geyso. sida loo daaweeyaa, daawooyinkiisu waxay ku xidhan tahay nuuca ayay ku xidhan tahay horta. marka nuucu hadduu yahay kii maskaxda dhiig ku furayey, waa in maskaxda intoo la furo, qalfoofka madaxa daboolee la furo, laga soo dareengareeyo ama laga soo faaruqiyo, laga soo xaaqo ama laga soo nuugo. nuuca labaad ee hadduu xinjir xidho, dawooyin baa la siiyaa, xinjirtaa burburiya oo jirka ka takhalusa ayaa la siiyaa. sidoo kale muxuu leeyahay dhiigu faaligu ka hortag buu leeyahay. ka hortaggaa ugu muhiimsan. marka sida caadigaana alwiqaayatu khayru min alcilaaj baa laydhaa, prevention is better than treatment. ka hortaggaa muhiima. marka hadduu qofku leeyahay dhiigkar, waa inuu dhiigkarkiisa xakameeyo, la socdo, dawadii si fiican u qaato, una isdiidsiinin, ama si wanaagsan ula socdo, la saaxiibo. marka dhiigkarka waad kantarooleysaa intii loogu talagalay, normal blood pressure waad kantarooleysaa. macaankaaga haddaad leedahay waad kantarooleysaa, macaankana waa la kantarooleysaa. sidoo kale cunto caafimaad qabta ama caafimaad leh ayaad cunaysaa oo dheelitiran, sida khudaarta oo kale, miraha oo kale ayaad cuni. sidoo kale maxaad samaynaysaa? jimicsi, exercise waa inaad samayso maalin kasta, si joogtaa waa inaad samayso. sidoo kale sigaarka iyo waxa waad iska joojinaysaa, sigaarku u keenaa waad joojinaysaa. sida oo kale waxaad ogaataa in nuucyada stroga laga hortagi karo. marka waxaad samaynaysaa tallaabooyinka aan soo sheegnay ayaad aad u samaynaysaa. haddii qofka uu ku dhaco stroke ama faalig, muxuu keeni karaa? dhibaatooyin muxuu keeni karaa? wuxuu keeni karaa dhaawac maskaxeed oo joogto ah, uuna qofka ka tegin oo maskaxdii dhaawacanto. naafanimo, qofku inuu naafoobo oo lixaad gabo. waxaa kaluu keeni karaa inuu dareenkii ka lumo, qofka uu waxba dareemi waayo, dareemihii maqaarka oo kale uu ka tago. waxaa kaluu lumiyaa xasuusta, qof waxba ma xasuusanayaba, wax alla wax xasuusanaya ma jiro. waxa kale uu dhibaatooyin keeni karaa
xagga dhibaato nafsadeed nafsiyahaaneed xagga nafsiyan buu xanuunsanaya qof oo qof welwel badan baa ku imanaya niyad jab baa ku imanaya runtii gabagabadii haddaan soo gunaanadno maanta waxaan ku casharkeennii ama baraarujinteennii faaligu waa xaalad caafimaad oo halis aad u darana laakiin maxay leedahay in hore loo ogaado ayaa lagaga hortegi karaa degdeg loo ogaado qofka waa la badbaadin karaa haddii aad aragto qof ale calaamadaha aan soo sheegnay si degdega goob caafimaad u gee sidoo oo kale ka hortagga ayaa muhiima caafimaadkaaga ka taxadar maanta si aad u wanaagsanaado mustaqbalka ama mustaqbal caafimaad oo wanaagsan u hesho wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu